بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل يا عشرة شبكة كبعية.com. عشر كنا ما أنتوا وحنا كبرندونا قابك وجو سهلين أي صور إياه ميوزك أما قرآن أما وحي أدون تلسكو دول سار كرلوجنا سمي كر فيديو كاسو هدبكو كاتسن كرتو عجل أما أتكو كاتسن كرتو على الفيديو يدا لوجو كيدي أي يوتيوب كا ندونا يا إن نقول دقة عشر كنا كسبسن على الكمبيوتر كا cashirkeena maanta waxaanu ku baranaynaa qaabka video aad u sameyn lahayd adigoo sawiro iyo codkaada ama music ba isku dul saari lahayd. haddaba si aad u hesho software ku sahlaya inaad is dul saarto waa inaad soo furataa Google. waa jiraan software computerka ku soo dega kaasoo leh Windows Movie Maker balse ka inta badan dadku way garanayaan ma doonayna ka maanta inaan ku noqnoqono. waxaan doonayaa inaan barano video pad. Okay, markii aad soo furato Google waxaad ku qortaa video pad editor. markii inta aad ku qorto waxaad arki doontaa linkiga kuugu horeeyo ay ku qoran tahay video pad video editor. ka click si aad u soo degsato software ku sahlaya inaad editing gareyso videoyada. wuxuu ku siinayaa maalmo free ah balse mar waliba oo ka dhacwa iska soo download gareysanaysa ma ahan download gareyntiisa mid waqti qaadanayo. halka ay ku qoran tahay download video editing ba click siinaysa halka ba eegaysa wuxuu ka turjumayaa in uu yahay wax lagu shubayo Windows. haddaba si aad u soo degsato halka ku dhufo download markii waa sidaad aragtay waa boobsiinaya waqti badan ma ka qaadanayo oo waqti kaama luminayo soo dejinta software kan lagu editing gareeyo videoyada. anigu inta badan asigan isticmaalaa inkastoo jiraan kuwa ka tayo badan balse asigan iska jecelahay inta badan aan isticmaalaa markii aan casharada diyaarsanayo. haddaba rande si aad ugu shubto computerkaaga. halka kore ay ku qoran tahay active ayaad saaraysaa waxaad leedahay accept ka bacdi next. waxaad arki doontaa qaab sidaana balse markii aad aragto qaab sidaana waxaad tiga ka qaataa saddexdan hoose ee ay tigda saaran tahay ka bacdi waxaad tiraahdaa finish. sidaad aragtaba waa uu soo furmayaa wuxuu kaloo kuu sameynayaa inuu kuu dhigo desktopka. halka iska cancelkan desktopka waa kan ku yaalo ku soo dhufo. markii aad soo furato waa kana waxa ku furmaya meeshii aad ku editing garay lahayd videoyada. halkan Adobe ay ku qoran tahay waxaad ka soo qaadanaysaa sawiro ama video ku doona ha ahaado kii ku yaalo desktopkaaga. anigu hadda sawiradan desktopka yaalan iska soo qaadanaya open. okay, markii aad soo qaadato sawir ama video wuxuu ku soo galayaa qaybtan. haddaba markii aad qaybtan aad soo dhigato wixii sawir ahaa ama video aad u baahneed waxaad sameynaysaa hal baad u soo qaadaysaa waxaad soo dhigaysaa bartaas. meeshan ay ku qoran tahay sidaad aragtiba drag ayuu ku leeyahay ama add items ayaad leedahay. inaad kor tagto ayaad right click add item. wuxuu ku leeyahay ma waxaan dhex dhigaa dhamaadka ma waxaan dhex dhigaa bilaago ma waxaan dhex dhigaa slider iska dheh. okay, sidaad aragtidba waa kan waa uu soo furmayaa way isdaba yaalaan. weli waxaad ku soo dartaa mid kaleeto. okay, hadda waxa inoo yaala meeshan sawiro saddex sawir oo aan isku daba qabanay oo aan isku darnay oo aan doonaynay inaan music dul saarno. haddaba sidaad cod ugu darto halka codka tag waxaad soo qaadataa codka aad doonaysid inaad saartid. anigu hadda waxaan saarayaa heeskii Cumar Dhulle Allah u naxariistay. codka laftirkiisa waxa uu ku soo galayaa meeshan geeska ah balse waad ka soo qaadaysaa ama waxaad leedahay right click add item. waa kan codku wuxuu iskeenayaa barta laakiin sidaad aragtidba sawirada waa kuwaana waxa aad u dheer maxaa la dhihi lahaa mp3 ga ama codka aad soo dhex dhigatay. haddaba si aad codku u yareyso ama aad iskula sinto geeska ba waxaad ka dhigaysaa fulaarta labada dhinac u kala baxsan saasa u jiidaysa. sidaad aragtidba uu yaraanayaa intan waa ka soo jiidaysaa si uu iskula soo ekaado
isla soo samee. Okay, hadda sidaad aragtid buu isla siman yahay. Okay, balayda sidaad aragtid sawirkii muuqaalkii sida ayuu isku dul saaran yahay. adigoo sameyn kara inta sawir aad doontid inaad halkaas ka soo qaadato oo aad inta soo dhigto oo aad ku soo darto inta sawir aad doonto ilaa aad ka dhameysato hawshaada. ka bacdina halkan baad ka saaraysaa musiga adigoo codkana u dheereysanayo. dabadeed waxaad tegaysaa markii aad dhameysato editingkaada. marka qaar waxaa jirta inaad u baahato intaanan ka bixin inaad qoraal ku dhex darto. for example halkan bilowga ah inaad ku darto waa diyaarintii hebel ama waxyaabo sidaa lamid ah. halka ay ku qoran tahay add text click siinaysaa. meeshan waa markii aad sawir ugu daraysa laakiin text baan leenahay halka. meeshaas waxaa ku dartaa diyaarintii kobciye.com. adiga qoraalka aad doonaysid ugu darso. ka bacdi okay wuxuu ku soo dhigayaa bartaas sidaad aragtidba. meeshaas baa qabanay waa jiidaysaa ilaa ay dhamaadka inuu qoraalka inuu la socoto hadaad rabtid. haddii aad rabtid inuu ku bilowdo bartaasaa keenay. meeshan scroll isku qoran tahay waxaa waaye kor ha ka imaado hoos soo aado hoos ha ka baxo kor ha aado. hadda hoos inuu ka baxo kor aadaan ka dhigaynaa. okay aan aragna marka sidaad aragtaba diyaarintii hebel wada aragtaa hoos ka baxa kor uga baxay waana sii socdaa. sidaa waa u habaysanaysaa. kolley kuma dheeraan kara macnaha iyo fasiraadda waxay qaadanaysaa waqti aad u fara badan balse waxaan filayaa haddii aan in yar softwareki aan kuu sheegay qaab yar aan kaa tusay inaad adigu dhammaystiran doonto maadaama aanan waqti badan loo heli karin ina si fiican loo qeexo. balse waxaan filayaa intaani inay ku ahaan doonto in aad ku bilaabato ka bacdina aad si fiican u fahmi doonto. haddaba markii aad intaas dhammayso waxaad tegaysaa file save movie. halka computer ka dooranaysaa si aad desktop ku dhigtid. browser aad leedahay desktop aad dooranaysaa save aad leedahay. meeshan kii aad u rabto aad ka dhiganaysaa AVI WMV inta badan anigu waxaan isticmaalaa MPJ gan iyo AVI ga. AVI baad ka dhiganaysaa ka bacdi waxaad leedahay okay. hadda wuxuu sameynayaa inuu kuugu save gareeyo desktopkaaga. kolley inta badan wax badan ma qaata softwarekan waa uu boobsiiyaa halka software kale ay ku daahiyaan. markii uu dhammaystiro waa kaa intaas buu dhammaystirayaa. waxa uu ku soo dhigayaa meesha ugu horeysa ku save gareysay. ka bacdi waad furanaysaa. muuqaalkan is dul saarnay iyo wixii baan fiirinaynaa sida ay ku soo bixi doonaan. sidaad aragtidba si toos ayuu ugu soo baxay. waxaan filayaa inaad fahanteen. asalaamu calaykum waraxmatullahi